waxaan uga gudbaynaa haddaynu fadliga ogaanay wadaa'iftii maxaa la qabanayaa maxaan samaynaa maxaa cibaadaada maxaa acmaal ah seen u cibaadaysanaa cibaadaadka xadiidka markaynu dib ugu noqonno xadiidkan ku bilownay muxaadarada nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasallam maa min ayaamin alcamalu الصaalixu fiiha alcamalu الصaalixu waa camal kasta oo saalixa camal saalix maxaa la yidhaahdaa camal kastoo ilaahay loogu dhowaado oo saddex shardi laga helay waa saalix cidda samaynaysa waa inay mu'min tahay oo gaal wuxuu sameeyo saalix ma noqdo waa in ilaahay dartii loo sameeyo oo niyadu ay tahay allah dartii bas ujeeddo kale aanay meesha ku jirin hadday ujeeddo kale meesha soo gasho oo niyadu kaa khaldanto camalku saalix ma aha shardiga saddexaad camalkaasi waa in uu u dhaco sidii alle u jideeyey rasuulkiisu u jideeyey sal alla alay wasalam iyadana haddaad khilaafto si khaldan u samayso iyadana saalix ma aha saddexdaa markaynu ka helna camalku waa saalix alcamalu الصaalix marka waa lafdi caam ah waxaa soo gelaya acmaashii oo dhan sadaqadii soonkii muxuu ahaayey khayrkii oo dadka la faro waxaa soo gelaya salaadihii waxaa soo gelaya muxuu ahaay ixsaankii khalqiga loo samaynayey wax kasta oo ilaahay jecel yahay camal saalixay soo geli allahuma in la helo waxyaabaha qaarkood nas ka saaray mooye alcamalu الصaalix khayr kastaa gelaya oo addoonku ilaahay ugu dhowaado tabaaraka wa tacaala shuruudiisana laga helo laakiin haddaynu si faahfaahsan usii gudagalno waxaa ka mida 10 beri acmaasha ilaahay loogu dhowaan karayo soonkaa ka mida 10 waad wada soomi kartaa 10 beriba waad soomi kartaa waynu soo marnay iyada maalinka sagaalaad inay fadli gooniya soonkeedu leeyahay laakiin maalinka sagaalaad kuma ekee 10 ma ahe 10 maalinka tobnaad lama soomi karo isagoo maalin ciid ah laakiin 9 ka horeeya waad soomi kartaa 9 kaba waa la wada soomi karaa waxaana tilmaamayaa xadiidka abu daawuud iyo axmed iyo keyrkood ay soo saareen nebiga xaasaskiisa qaar ka mida laga warinaya kaana rasuulullahi sal alla alay wasallam yasuumu 9 dilxija nebigu 9ka bisha dilxija wuu soomi jiray wa yowma caashuura iyo maalinka caashuura waa bisha muxaram maalinkeeda tobnaad wa 3 ayaamin min kulli shahrin bil kastana 3 beri buu ka soomi jiray nebigu sal alla alay wasallam marka 9 dilxija culimada qaar waxay ku fasireen bimacna 9ka beriba qaarna waxay yiraahdeen maalinka sagaalaad way jirtaa tafsiirkaasi laakiin sida saxda 9ka beriya bisha dilxija waa xafsa bint umar baa iyadana xadiid macnaha leh nabiga ka warinaysa sallallahu alayhi wa alihi wasallam saas daraadeed baa aymadii salafka qaar badan waxaa ka sugan iyo saxaabadii inay soomi jireen 9ka beriba مثلا عبد الله بن عمر وكله الحسن بن ابي الحسن البصري وكله ابن السيرين وكله قتادة بن دعامة وكله ويسومي جيرين وحليه هي ابن رجب عليه رحمة الله إن الصوم 9 بريه بش وهرية وقول أكثر العلماء أو كثير منهم وعلماء بدن كوت سيقبان أما إن بدن أيه كم إذا سيقبان واحد إن للصوم كريو طبعا العمل الصالح بيسوق ليا صوم هذه حتى أن دليل خاص لوهلين عموم كحديث كهراء كفلا طيب هذه قصير لي هذا ورك صوت ضوبه صونك 9 بريه بش وهريسه ومشروع 9 ولا ودا صومي كريه طيب صونكم marka waa mid waa cibaado sideedana u weyn maalmahana mashruuc cibaadaadka ilaahay jecel yahay kamid waxa kamid ah acmaasha iyada ee aynu 10 bari ilaahay ugu dhawaan karno qiyaamul leylka inaynu habeenkii la istaago salaadii habeenkii la tukado salaatul leylkii muxuu ahay waqti dheer la istaago la taagnaado leena si ahaanteedaba salaada habeenka la tukado salaadaha sunnaha iyada u fadli badan waajibka marka laga yimaado salaad ilaahay loogu dhawaado waxa ugu fadli badan salaada habeenka u fadli badan حديث أبو هريرة تلمامية في صحيح مسلم وغيره أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة واجب كمرك لجي ماده صلاة لتكذا وحى أقفض بدن صلاة هبينكي مرك هبينكي إن قيب كقاضته قرآن كريم كان وكذا ركتين وإلهي أكسي في مؤمنين تا مركو إلهي سفينه هبينك قيب كم إذا إني قاتان ويسوق عان يعني وحويان
آيات الدورة إلهي وشيء تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني ما شيء شيفان بككعان ودين عودوا كفوا هذا إلهي بيسوتاجن طيب كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بينك قار كم إذا مسيحدان ويسوكعان مرك قيام الليلكو سيدا دبا ودقنك ضدك مؤمنين تهبينك قار كم إذا إني استاجان هبيندو هذي مرك فضل السيادة عليه هنا صلاة ضد السيادة وضتها وقت السائد كعبادة قش السيادة وضتها مرك أما صلاة هبينك هالنقطة أما صلاة السنن كهالنقطة صلاة واجب كهرية كدم بيه أما صلاة دي برقنك هالنقطة صلاة إن محوها يروح وبتصد السنن كو واجب كأنا يجلس كبده طيب مالمها طبعا كان سيجوريا با لو أمر إنسان صوت المعنى با ذكري قاسي مرك وحكم إذا تكبيرته الله أكبر تاكم إذا ولي بعماش أقيم بدن كمرة تكبيرته مالمها سي وحي أقيم سنتها لا بقيبود يعني وحي التكبيرات أما التكبير مطلقة هي تكبير مقيدة تكبيرته مقيد كوامد صلاتها قداش وضل التكبير صدوه وحين كبر لابتا سيد السلف كسوغن تكبيرات كصلاتها كدم بيا صلاتها شنتي واجب كامر كلا تكدو لا تكبير صدو وحي كبر لودان مالين تعرفوا صلاة هذا الصباح مركلة كذو أيها الله بالله وياه وحيكو إجيهن مالك صدحية طبنات بشا صلاة هذا عصر كمركلة كذو سيدا سيسلف كهانشين رضوان الله عليهم صحابة النبي قال تابعين تي عمل لك على رحلة إن صلاتها مالمها أفرتها تكبيرات كصلاتها قداش وضع الله تاوح لي هذا مركز تكبيرات مقيدة تكبيرات مطلقة كذا وحل قاد هالشبع شانس قاد هالشبع ميل والبا هذا اسك تكبير صوت طيب كوانا واتشرا مركز تكبيرته عمل وين مالمها إسقاها كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ساستراديد با عبد الله بن عمر يا أبو هريرة مالمها ستوبنك أو يبيح جرين سوق يبيح جرين مركزي تكبير سنجرين سوق انت هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر فيكبر الناس بتكبيرهما ضدكم مركي مقران الله أكبر توضا بعد ضدكم لا تكبير سنجرين رواية لو وحي لا هاي سوق أبو وحكى لمين هو آدي جرين أبو هريرة إيه ابن عمر ألعب سو يبسدا أما قناعسي أما عيد سو سلامة ما هين أما صوت جميع صدا ما هين لكن سوق وحي هو آدي جرين كلية إني ضدك حسوسيا تكبيرته markaas intay suuqa dhex maraan bay takbiirta ku dhawaaqi jireen dadkuna markaas markay maqlaan bay takbiirsan jireen marka takbiirtu waxay kamid tahay acmaasha jaliilka ee Ilaahay loogu dhawaan tabaaraka wa taala la siyama waxaan ku sii jirnay iyadu maalinta carafa iyada dhikrigu iyadana khaasiyo leh ducada iyo muxuu dhikriga noocyadiisa kale xadiidka Amr ibn Shu'ayb baa warinaya can abihi can jaddihi baa sheegaya wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam yiri khayru du'aa'i دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دعاء الدعاء يستوحى أو خير بدن دعاء ما أنت عرفه والله أقبلي إلهي بعدو وأنا أقبلي وحن إلى هذا أنا جاي النبي يدي يجهري وحن كهذا الله كهذا لنا وحى أقفض بدن أو خير بدن كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يعني ذكر إلهي حسكي سميد أقفل بضنوه مرك الدعاء ودعيسا لا إله إلا الله يا ذكر جاس سبحان الله الحمد لله وهكذا مرك مالما وحن وقف إذا سننا صونكي صلاة صدقة ذكري خيرات كاكل الدوان يعني واحد إحسانك خلقك إحسان الله سميه مالمها وحكستو عمل صالح إلهي وقول دواته وفرين حلي هذا كلام لبيد ما ساستراديد أن أطرتنو أنا بتصنو إن شاء الله تعالى أنت وحن قدرينا وإن نقول جبيننا مالمها وحي مانك عيدا لو قارو بشو طبنته هي وحي كدم بيه وصدح دبريه كدم بيسا أعماش الله سميه وحكم ذا إن حول الله قالوا أول لك ورعه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إلهي أتكو قورعنا
gowracu wuxuu ka mid yahay cibaadaadka ilaahay jecel yahay sidaas daradeed baa hadaad cid kale oon Allah ahayn wax u gowracdo shirki looga dhigay laana waa cibaada gowrac waa goorma marka uu qurbayho wax ilaahay loogu dhawaanayo cibaadaya marna wuxuu iska noqdaa gowracu wax hilib loola qastayo shaatu ka shaatu laxmi waa marna hilib baa loola qastayaa cibaado ruuxu kama dhiganayo marna gowracu waa cibaado ilaahay loogu dhawaanayo waa udxiyo waa hadiyigi xajka waa wanqal waa cibaadaad markaas oo kale marka cibaadadaas xoolaha in la qala ah waxa iskale yani ciidana iskale bil munasaba Soomaalidu labada ciidood ba xoolay qashaan ciidii Ramadaan xataa xoolo la qashaa laakiin ciidda Ramadaan in xoolo la qasho cibaado ma ah hilib una say qastaysaan oo hilib cunri rabtaan mooyee laakiin meesha kuma jirto qaliin ilaahay loogu dhawaado kuma jirto qaliinka ilaahay loogu dhawaanayo wuxuu ku jiraa ciidan uu ku jiraa oo fadliga badan marka munaasabad kale insha Allah kaga hadli doona xoolaha la qalayo shuruuday u baahan yihiin xilliga la qalayo munaasabad kale kaga hadli doona laakiin maqsuudka hadda aan u keenay wuxuu yahay cidii doonaysa oo ku tala gashan in ay udxiyo qasho bishu haday dhalato waa inuusan jirkiisa waxba ka goynin cidiyihiisa timihiisa jirkiisa waa inuusan waxba ka jarin ilaa uu neefka qalo waa hadaad ku tala gashan tahay inaad wax qasho hadaadan ku tala gashanayn iska xiiro timahaaga jaro dhimala laakiin hadii qorshahaagu yahay bisha dhalashadeedaba jirkaaga waxba ka goyn markay dhalataba sida waxa tilmaamaya حديث أم سلمة في صحيح مسلم نبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره رواية قالوا حال هذا بشرة دي سيجيري سيسوح كجوين متكين هدو بشد الحجة أي نلته ونكوت لك شيء يهدون يينو وحقلو تيميه سا يعديه سا هكجاب صدا يسوح بكجوين تشيركي سوح كشري سيدا النبي جينا يري صلوات ربي وسلام عليه marka hadii aad ku tala gashantiin xukumkaas oo laga bilaabo inuu caawo bilaabanay hadii bishi caawo dhalato isla caawo bilaabanay timahaaga iyo jirkaaga waxba ka goyn hadaad xoolo qal rabto intaasi ayaan insha Allah ta'ala ku gabagabaynayna kalimadii ahayd yani 10 dhul hijja fadaa'il wa wadaa'if yani fadliga ay leedahay iyo maxaan qaban karaa maxaa amaal marka laga faa'iideysto insha Allah ta'ala oo sida aan 10ka dambe bisha Ramadaan mudnaanta aan siino oo kale mid la mid ah ama ku dhow hal siiyo insha Allah oo laga faa'iideysto sax iyadoo la mashquulsan yahay oo ganacsi jiro hawla lagu mashquulsan yahay hadana insha Allah ta'ala yeynaan janiskaasi luminin hada billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi